hay-adda Nisa ayaa si la yaab leh waxay kaga hadleen kiiska Ikraan Tahliil ayadoona arintan si weyn ay u soo farageliyeen saraakiisha sirdoonka ee ka socda wadamada reer galbeedka ee ku sugan xirada Xalane ee Muqdisho qof walba muuqaalka daawanayo waxa muhiim ah in asiga uu iska soo qaado Ikraan Tahliil ama uu ka soo qaado hooyadiis ama walaashiis maxaa dareemi lahayd muddo bil ka badan gabar kula dhalatay oo wax baratay haddii aad weyn lahayd waxa la yaab leh haweenkii sheegan jiray inay u doodaan xuquuqda haweenka hal mar maysan ka hadlin arinta Ikraan Tahliil kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta awooda aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhamaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeysa waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuraha leedahay ilaahay inuu sahla ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadonkaana ilaahay awlaad baari hasi inta gurdonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ay baweyna hasi qof walba muuqaalka sharta ku qabtaan la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena mal adduunyo ay safileenin inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo dambiga waalidkooda ee bawlaata rabbi subhanahu wa ta'ala ana ku cazuma jannatul الفردوس على حاسدك وعلى نهاية ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وعكودا بينيا هاي خسارة ورب سبحانه وتعالى عن كجبر ينا أرنتا إكرام تهليل أيها إركا يسكسي شريريسا وعنا أرنتا سوين أسوأ فرقلية سراكيشا سردون كي كسعدا ودمدر القربات كي كسوغان حيرادا حلالكوا صعودا شيء دلالك ملايكن كإنجليزكا يميدوغا يوروب طلياها يأدى النسا فهد ياسين حاجي ظاهر يا لغيري حيرادا حلال وحنا أمر لغو سيين وعدايا هلكا إمرتا إكرام تهليل ولغوتو ميا سراكيشا يأدى النسا قارهان فهد ياسين كوغانكي أبودا بناها حلكا لغا قادي كولنا جيس ولو يقان جيس مريحان كبري إنين لغو مقعاوا عبد الله ديري ولو يقان أوغاسكا شخصيات كلو كترسان هيئة النساء وحانا تاسي كانتا إن فهد ياسين وسمية دقدقاق كوادن أرنتا إكرام تهليل إيسيد اللود بولي الهاكيسكا إكرام وحد عركا اسكوسي شريريا سراكيشا سردون كي كوسغان حرادة حلال ايوا دمدر القلبات كسعوتا waxay u sheegeen taliyaha Nisa in kiiska Ikraan Tahliil uu sameeyeen kiis la iskaga harayay isla markaana ay waajib tahay in la sheego halka Ikraan la geeyay iyo waliba halka ay martay ayadoo taas laga duulaya ay hay'adda Nisa maanta waxay sameysay dhaqdhaqaaq isku day ah oo Nisa qudheeda ay soo abaabushay hawshan waxa loo xil saaray saraakiil ay kamid yihiin Maxamed Qadar oo loo yaqaan Sambalowshe qaraabana ay yihiin gabadha maqana Ikraan Tahliil iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo xubno ka tirsan saraakiisha booliska ninkan aan ka hadlayna Maxamed Qadar Sambalowshe wuxuu kamid yahay shakhsiyaadka Fahad Yaasin u fuliyo qorshooyinka iyo dilalka waxaana hore kaga tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab waxayna soo abaabuleen yar lagu magacaabo Cabbaas oo degmada Shibis laakiin aan ka tirsanayn hay'adda Nisa laakiin waqtigan sheeganaya inuu ka tirsan yahay Nisa kaas oo loo sheegay ama lagu wargeliyay inuu la xiriiro hooyada dhashay Ikraan Tahliil isla markaana uu weydiistay lacag dhan $2,000 uuna tusi doono Ikraan Tahliil asagana gacanta uu ku haya sida Cabbaas uu ka sheegay saldhigga degmada Xamarweyne oo ay ku soo xireen Maxamed Qadar Sambalowshe iyo sidoo kale wadna qabad iyo xubno u shaqeeya taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasin waana kiis la rabo in loo saariyo Cabbaas iyo dhalinyaro kale arinta Ikraan Tahliil si ay kaga lug baxaan taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasin iyo sidoo kale ku xigeenkiisa kulana jiis ninka ugu awooda badan hay'adda waqtigan ee lagu magacaabo Cabdullaahi Dheere oo loo yaqaan Ugaaska waxaa hadda degmada Xamarweyne waxaa ku xiran nin lagu magacaabo Cabbaas kaas oo sheeganaya ama hore u sheegay inuu og yahay halka la geeyay Ikraan asoona sheegaya inuu ka tirsan yahay Nisa waxaana dhawaan la soo qabanaya dhalinyaro kale kuwaas oo ayakana ku biiraya qoomka Cabbaas oo la geen doono maxkamadda si kiiska Ikraan Tahliil gabi ahaanba loo aasay isla markaana laga dugo taliyaha hay'adda Nisa in ninka kiiskan doorka weyn ka qaaday isla markaana la tuunsan yahay in laba midkood gabadha uu dilay ama uu haysto oo lagu magacaabo kulana jiis oo Soomaalida ay u taqaan jiis mariixaan kibre kaas oo awood badan ku lahaa hay'adda Nisa dhawaan xilkii uu ka qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya محمد حسين روبله وحنا مستر كلنا جيس لا شيء يا إنه يهاي قفكا كدم بيا كيس كإكرام تهليل والله شيء حتى إنه حدا حل جيجا عنته وكوها يوجا يستيجر دي الحوجن إيش لو كلا فلا الكفسية هذا وحي عرين تنكسو كردا كلا سعو هلكن
dhammaanteen waxaa waajib nagu ah inaan ka dhiidhinaa kiiska Ikraan Tahliil isla markaana aan ka soo qaadnaa in Ikraan ay tahay walaasheen ama hooyadeen waxaana dhammaantiin idinka codsanayaa muuqaalka inay aad sii shargareysaan isla markaana aan u istaagno in Ikraan Tahliil ay hesho cadaaladda kuwa dhagar qabayaasha ay geystay dambiga isla markaana shaatiga iyo awoodda dawladnimada ku waxyeeleeyay Ikraan Tahliil loo horkeeno cadaaladda wararka hadda soo baxay waxay sheegayaan in Ikraan Tahliil hooyadeeda maxkamadda ciidamada ay ka soo jaratay waaran taasoo eelaboorka muqdisho ka hor istaagaysa inay ka duulaan kulana jiis oo loo yaqaan jiis mariixaan kibrey iyo sidoo kale shakhsi kale oo lagu magacaabo wadna qabad kaasoo la tuunsan yahay in gaarigii lagu waday Ikraan Tahliil uu waday بس مش كيس كسر حباك الجيران ها وان والدينا